kulanti wacan saaxiibayaal ku soo dhawaad warkani qodobada aad ku daawan doontaan waxaa ka mid noqon doona Faadiyasiin Xaaji Daahir agaasimihii hore hay'adda nabad sugidda sirdoonka qaranka Soomaaliyeed oo fashiliyay qorshe uu damacsanaa Mahad waxaan idin soo gudbin doonaa guulo waaweyn oo Faadiyasiin uu ka gaaray agaasimaha hay'adda nabad sugidda sirdoonka qaranka Soomaaliyeed Mahad Maxamed oo inta badan ku fashilma talaabooyinka uu soo qaaday dhanka Faadiyasiin iyo kooxdii hore ee nabad iyo nolol waxaa kale oo qayb ka noqon doona saaxiibayaal qodobada warkeena oo kaga bogan doontaan inta uu soconayo madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo codsaday in la kulansiiyo ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Ahmed iyadoo labadooda ay ku wada sugan yihiin magaalada Nairobi ee caasimadda dalka Kenya xogii ugu dambeeyay oo ku saabsan qodobkaasi ayaan idin soo gudbin doonaa dhanka kale waxaa qayb ka noqon doona qodobadeena saaxiibayaal dowladda federaalka Soomaaliya oo go'aan ka gaartay sida laga yeelay heshiiskii hore oo wada galeen Uhuru Kenyatta iyo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyadoo mar kale heshiis rasmi ay kala saxeexan doonaan madaxweynaha cusub ee dalkaasi William Ruto xogii ugu dambeeyay kulamada Xasan Sheekh Maxamuud oo ka wada magaalada Nairobi iyo wada hadalka ay yeelanayaan madaxweynaha dalkaasi Kenya ayaan idin soo gudbin doonaa saaxiibayaal dhammaan qodobadaasi iyo kuwa kale ayaad kaga bogan doontaan warkeena gooranadina xasuusiyo inaad subscribe saarataan channelkeena sidoo kalena like saarataan barteena Facebook si aad mar waliba la socotaan wararkii muuqaalada xaqiiqda ku saleysan in ku baahina baraheena bulshada sidoo kale like saar muuqaalkan saaxiibada la sii wadaag aragtidaadana noogu reeb halka commentiga ay ku qorantaa waxaadna ka soo hali kartaa dhammaan qodobada warkeena si gaar ah waxaad uga soo hali kartaa qodobka ku aadan Faadiyasiin oo fashiliyay qorshe uu damacsanaa Mahad Maxamed iyadoo qorshahaasi uu doonayay inuu ku waxyeeleeyo madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Farmaajo haddaba daawade sideed u aragtaa talaabadaasi waayay saaxiibayaal faahfaahinta ayaan u gudagalayaa haddii aan ku horeeyo qodobkeena koobaad agaasimihii hore hay'adda nabad sugidda sirdoonka qaranka Soomaaliyeed Faadiyasiin Xaaji Daahir ayaa waxa uu fashiliyay qorshe uu damacsanaa agaasimaha hay'adda nabad sugidda sirdoonka qaranka Soomaaliyeed Mahad Maxamed iyadoo uu doonayay Mahad inuu talaabo u qaado dhanka Maxamed Farmaajo taasi uu doonayay inuu ku carqaladeeyo amnigiisa Mahad oo ah dagaal ooga sidoo kalena ah qabqabla siyaasadeed ayaa mar waliba waxa uu ka shaqeynayaa sidii weeraro ugu waxyeeleen lahaa xubnihii hore ee nabad iyo nolol waa uu ku guuldareystaa dhammaan talaabooyinka uu qaado Mahad Maxamed iyadoo inta badan uu fashiliyo agaasimihii hore hay'adda nabad sugidda sirdoonka qaranka Soomaaliyeed Faadiyasiin Xaaji Daahir oo wali isagu gacanta ku dhiga xogaha ugu badan ee sirdoon ee Soomaaliya midaasi ayaana keenta inuu laba talaabo ka horeeyo Mahad oo ogaado xogtiisa inta uusan ku dhaqaaqin sameynta ficilka dhanka kale waxaa xusid mudan in Faadiyasiin Xaaji Daahir wali awood buuxda uu ku dhexleeyahay hay'adda nabad sugidda sirdoonka qaranka Soomaaliyeed saraakiisha ugu sarreeyay hay'adda ayaana wali aaminsan Faadiyasiin Xaaji Daahir oo wada shaqeyn wanaagsan ay soo dhexmartay hay'adda nabad sugidda ka dhigay midii ugu tayada wanaagsaneed dhammaan xilliyadii ka dambeeyay burburka saraakiishan waxay la qabsadeen habshaqadii Faadiyasiin Xaaji Daahir oo ahayd mid dhan waliba markii loo eego waafaqsan sharciyada sirdoonka caalamka sidoo kalena tayo lahayd iyadoo sirdoonka Soomaalida ay sare u soo kaceen ayna la mid noqdeen kuwa caalamka markii la eego keedinta xogaha iyo soo helidda siraha cadowga saraakiishan ayaa aad u dhibsaday dhaqanka xun ee agaasimaha hay'adda nabad sugidda sirdoonka qaranka Soomaaliyeed waxayna tilmaameen in mar waliba Mahad uu ka shaqeeyo sidii hay'adda nabad sugidda uu gacanta u gelin lahaa arrimo siyaasadeed waxa uu mar waliba qorsheeyaa weerar siyaasadeed oo xubnaha hay'adda nabad sugidda uu ku amro in ay qayb ka noqdaan waxayna tilmaameen in arrinkaasi uu yahay mid baalmarsan waxyaabihii u soo dhaarteen oo qayb ay ka ahayd difaaca dalkooda dhanka kale waxay salugsan yihiin shaqada hay'adda nabad sugidda sirdoonka qaranka Soomaaliyeed oo hoos u dhacday 100% iyadoo xilligii Faadiyasiin Xaaji Daahir ay gaartay midii ugu sareysay waxyaabaha aadka ugu darsadeen Faadiyasiin oo dhibaatooyinka haatan ay ku qabaan waxaa ka mid ah amni darro soo wajahday shaqaalaha hay'adda nabad sugidda sirdoonka qaranka Soomaaliyeed maadaama uu bilowday dayax xoogan mas'uuliyad darro amniyadeed iyo weeraro isdaba joog oo ka dhacay magaalada Muqdisho saraakiishan ayaa waxay sheegeen in haatan hay'adda nabad sugidda sirdoonka qaranka Soomaaliyeed ay ku dhex jiraan xubno wada shaqeyn la leh argagixisada midaasi oo keentay in xogahooda loo gudbiyo baqdin weyn ayuuna sheegay inay ka jirto hay'adda nabad sugidda sirdoonka qaranka Soomaaliyeed oo ugu horeyso
in qof waliba uu la cabsanayo naftiisa maadaama amni darri baahsan ay jirto sidoo kalena aan la isku wada kalsoonaan karin oo gudaha hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed haatan uu ku jiro isku dhexyaa. waagaag saaxiibayaal qaybihii dhexe ee warkeena ayaan ku guda jirnaa markana qodobadeena kale haddii aan si anbaqaadno madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ah ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa waxa uu codsaday inuu kulan la yeesho Abiy Ahmed ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya. madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo haatan ku sugan magaalada Nairobi caasimadda dalka Kenya ayaa codsaday inuu kulan gaar ah la yeesho ra'iisul wasaaraha waddanka Itoobiya Abiy Ahmed. labada mas'uul ayaa iskala qayb galay xafladda caleemo saarka madaxweynaha dalka Kenya William Ruto oo maanta loo caleemo saaray loona dhaariyay madaxweynaha dalkaasi. wararka ayaa waxay tilmaamayaan in diblomaasiyiin ka socda labada dal maalmihii u dambeeyay Nairobi ku wada hadleen diyaarinta kulanka u dhexeeya Xasan Sheekh Maxamuud iyo Abiy Ahmed oo ku soo aadayo xilli ay haatan taagan tahay xiisad u dhaxaysa labada dhinac. Xasan Sheekh Maxamuud ayaa kulankan waxa uu ka codsaday ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Ahmed iyadoo Mr. Abiy markii dambe uu ogolaaday inuu la kulmo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud. labada mas'uul ayaa la sheegay inay ka wada hadli doonaan sidii xal looga gaari lahaa madmadowga hadda u dhaxeeya iyo sare u qaadida xiriirka labada wadan oo isbedel hoose uu ku yimid kadib doorashadii 15kii May uu ku soo baxay Xasan Sheekh Maxamuud iyadoo Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo xilligii hore wada shaqayn wanaagsan ay lahaayeen Soomaaliya iyo Itoobiya. saaxiibo dhow iyo xulufan ay ahaayeen Farmaajo ra'iisul wasaaraha dalkaasi Itoobiya Abiy Ahmed. sidoo kale waxaa la filayaa in labada dhinac ay gaaraan heshiis is-afgarad ah oo ku aadan iskaashi ay yeeshaan labada dowladood oo dariska ah. kulankan waxa uu ku soo aadayaa xilli dowladda Itoobiya ay raaligelin ka bixisay warbixin laga sii daayay telefishinka qaranka dalkaasi Itoobiya oo toos loogu weeraray Xasan Sheekh Maxamuud. warbixintan ayaa waxaa lagu sheegay in Xasan Sheekh uu taageero siiyo jabhadda Tigreega oo la dagaalamaysa dowladda federaalka Itoobiya midaas oo dhalin karta halis ka badan midda haatan ay al-shabaab ku hayso Soomaaliya. markii dambe dowladda Itoobiya waxay ka bixisay hadalkaasi raaligelin balse waxaa la rumaysan yahay in Itoobiya ay aad uga careysan tahay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud. sidoo kalena markii la eego labada dhinac haatan aysan lahayn xiriir wanaagsan iyadoo Xasan Sheekh Maxamuud hore xiriir uu la lahaa Tigreega oo markii xilka uu ka degayay 2017kii iyagoo xukumayay dalkaasi. in Xasan Sheekh looga shakiyo Tigreega waxaa soo dadejinaysa inuu xiriir wanaagsan xilligaasi la lahaa madaxweynaha dalka Itoobiya oo ka soo jeeday qowmiyadda Tigreega waxaana dhacay isbedel xoogan oo saameeyay geeska Afrika markii ra'iisul wasaare loo doortay Abiy Ahmed oo ka soo jeeda qowmiyadda Oromada waxaana gabi ahaan isbedelay habdhaqankii siyaasadeed ee dalka Itoobiya iyadoo Abiy Ahmed uu la yimaaday siyaasad furfuran walaaltinimo iyo saaxiibtinimo leh dhanka kale tana dhowraysa dalalka dariska. waxayna aad isku fahmeen madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo oo muddadii xilka uu hayay Farmaajo ay ahaayeen saaxiibo dhow oo siyaasadeed. ugu dambeyntiina saaxiibayaal dowladda Soomaaliya ayaa ka hadashay sida laga yeelayo heshiisyadii hore u wada saxiixdeen madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh iyo Uhuru Kenyatta. wasiirka warfaafinta Soomaaliya Daawud Aweys oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo dhigiisa Kenya William Ruto ay ka wada hadleen xoojinta xiriirka labada dal iyo sidii loo fulin lahaa heshiisyadii ay labada dhinac kala saxiixdeen. Daawud Aweys waxa uu tilmaamay in madaxweynaha cusub ee Kenya William Ruto ee maanta la dhaariyay uu marti qaaday madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo ka mid ah martida munaasabadaasi ka qayb gashay. wasiir Daawud ayaa sheegay in madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo William Ruto ay horey teleefanka uga wada hadleen xoojinta xiriirka labada dal dhinacyada ay iska kaashan karaan iyo kulan guud oo yeelanayaan kadib xafladda caleemo saarka. William Ruto ayaa dhawaan sheegay inuu madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud kulan la qaadan doono wuxuuna ganacsatada qaadka ee Kenya u ballan qaaday in qodobka ugu horeeya uu kala hadli doono uu noqon doono sidii loo xoojin lahaa xiriirka ganacsiga labada dhinac ee qaadka. dowladdii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo ayaa joojisay qaadkii ka imaan jiray dalka Kenya kadib markii uu xumaaday calaaqaadka labada wadan. guud ahaan saaxiibayaal warkii aad kala socoteen janaalka ayaan kusoo gabagabeynayaa
waa idinkaga mahadcelinayaa daawashada muuqaalkan anigoo dhanka kelidin xasuusinaya inaad subscribe saarataan channelkeena si aad mar waliba ula socotaan wararka xaqiiqda ku saleysan in ku baahina baraheena bulshada sidoo kale like saar muuqaalkan saaxiibadaada la sii wadaag aragtidaada noogu reeb halka commentiga ay ku qoran tahay waxaadna ka soo heli kartaa dhammaan qodobada warkeena muuqaalkan kiisiga saaxiibayaal inta ku kulmi doono waxaad kaga tagayaa sida ay nabadgelyo